waxaa maanta howlka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland ka qabsoomay kulanka qorshe sanadeedka ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland ee 2020 kulankaasina waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Jamaal Cabdi Muuse waaxidyada iyo suuduwayaasha wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland horeyna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland oo ka warramay ahmiyadda qorshe sanadeedka 2020 isagoona soo bandhigay qorshayaal waaweyn oo u dejisan wasaaradda ee sanadka 2020 isla markaasina waafaqsan qorshaha guud ee qaranka Somaliland ee National Development Plan sidoo kalena siyaasadii iyo barnaamij siyaasadeedkii kulmiye iyo siyaasadda madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidaynu la wada soconno kulankeenani maanta wuxuu daaran yahay guud ahaanba ka wasaarad ahaan inaynu isugu nimaadno kulankii sanadlaha ahaa ee ay wasaaraddu isugu iman jirtay waxaynu insha allahu ku lafaguri doonaa wax badan oo ah wixii aynu soo dhaafnay wixii inoo qabsoomay wixii inoo qabsoomi waayey waxa inoogu qabsoomi waayeen iyo sanadkan cusub waxa inoo qorshaysan iyo sida aynu insha allahu aynu u qaban doono waxaan jeclaystay inaan xoogaa guud marno maadaama wasaaraddu ay dalkoo dhan isaga timi oo aynu isla socodsiino qorshaha wasaaradda 2020ga wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurku waxay diyaarisay qorshaha 5 sanadood sidaa ogtihiin ee aynu ka soo bilownay 2018kii taasoo waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka NDP2ga barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi taasoo mar kale si gaar ah u waafaqsan wasaaradda istiraatiijiyadeedii inagu ka wasaarad ahaan waxaynu leenahay qorshe istiraatiijiyadeed oo wasaaradda 2018 ilaa 2020 kaasoo waafaqsan qorshaha guud ee qaranka haddaba waxaynu u dejinnay sidaynu hawsha ugu guulaysano sidan soo socota oo ah wacyigelinta dastuurka iyo fahanka wadaniyadda ee bulshada Somaliland dhamaystirka iyo hirgelinta ku daridda manhajka waxbarashada maadada wadaniyadda oo aynu ka wada shaqaynayno wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ogtiin inay soo bilaabantay waqti hore runtiina si weyn hawshiisa aynu u wadno iyadoo qaybtii jaamacaduhu ay iminka inoo dhammaystiran yihiin qaybtii dugsiyada hoose dugsiyada dhexe iyo sare iyadana aynu gacan weyn aynu ku hayno sidoo kalena waxa uu wasiirku ka hadlay dib u habeynta shuruucda maadaama uu lagu soo daray wasaarad guddigii dib u eegista shuruucda isla markaasina ay ka wada shaqaynayaan xeerar waaweyn oo ahmiyad u leh qaranka Somaliland horumarinta dastuurka iyo dib u habeynta shuruucda qodobkaas oo aad u ballaaran oo aad garanaysaan isaguna wuxuu ka mid yahay qorshaheena 2020ka dib u habeynta iyo waafajinta shuruucda xeerarka kala ah xeerka ciqaabta guud waxa weeyaan waa penal code-ka iyo penal code procedure-ka xeerka habka ciqaabta guud xeerka madaniga ah oo civil code loo yaqaano xeerka habka madaniga ah oo civil code procedure ah iyo xeerarka kale ee muhiimka ah waxaana hadda dhammaad ku dhow oo muddoba aynu gacanta ku haynay innaga oo aynu ka wada shaqaynayno hay'addii dib u habeynta shuruucda ee laynagu soo daray iyo aqoon-yahano kale dhammaystirka qodobada dastuurka xeer baa qeexaya ama dejinaya kaasoo aynu isagana ognahay inay ilaa iyo ugu yaraan 29 xeer ay sidaa yihiin waxaanu jecelahay isagana inaynu wuxuu ka mid yahay qorshaheena 2020ka in lagu soo afjaro daraasaynta iyo ururinta tirada xeerarka ansaxa ah ee qaranku leeyahay qaar waynu curinaayo inaga abuurna marka iyadana inaynu wixii aynu gacan ka geysanaynaana sidoodii ahaadaan wixii aynu curinaynaana iyaguna aynu qayb ku yeelano 2020ga xoojinta xidhiidhka wada shaqaynta xukuumadda iyo golayaasha xeerdejinta kaasina waxa weeye waa qodob aad iyo aad u ballaaran waxyaabo yar yar haddaynu ka tilmaano midaynta iyo iswaafajinta mudnaanta muhiimadda uu u baahan yahay ansixinta
xeerdejinta iyo kalfadhiyada golayaasha xeerdejinta waxaynu kaloo gacanta ku haynaa isaguna xeer aad u muhiima oo isagu ah xeerarka waxa weeyaan aynu gacan weyn ka geysanayno oo ah xeerka badda Somaliland ama Somaliland Maritime Law oo isagana aqoon-yahanka Somaliland ay isugu yimaadeen dhammaan sidoo kalena waxa uu wasiirku ka hadlay astaamaha qaranka iyo qorshaha uga yaala ka wasaarad ahaan ee uu dejisan sanadka 2020 isagoona wasaaradda intaasi raaciyay inay dejiyeen xeerar lagu hagi doono astaamaha qaranka kuwaasi oo hor yaala golaha wasiirada ee Somaliland oo dhawaan la ansixin doono mashruuca ilaalinta astaanta qaranka astaamaha qaranka inaga u xil saaran sidaa daraadeed iyaduna waa qodob aad iyo aad u weyn oo ka duwanaan doonto sanadihii aynu soo dhaafnay sanadkan haddii ilaahay ka dhigo ilaalinta dhowrista astaamaha qaranka iyo isticmaalada si waafaqsan dastuurka hirgelinta mashruuc web portable application kaasi waxa weeye sida intiina badani ogtihiin si loo helo adeegyo casri ah oo muwaadiniintu u fududeynaya helitaanka dastuurka meel kastoo ay joogaan iyo shuruucda dalka waxa hirgelintiisu gabagabo ku dhowdahay barnaamijka oo la jaan qaadaya tiknoolajiyada casriga kaasoo dastuurka lagala soo degi karo meel kasta ama Play Store-ka mobilada iyadoo aan u baahnayn internet laakiin qof kasta oo mobil haysta uu runtii u sahlaya si fudud inuu u adeegsado runtii waxyaabaha aynu doonayno inaynu qabanno aad iyo aad bay u tiro badan yihiin kartideeda iyo maxaa dhahay aqoonteedana waa leedihiin wax waliba waxay ku suurtoobaan waxa weeyaan in la qorsheeyo laakiin haddii aad sanadku markuu dhamaado aad tidhaaho maxaynu qabanaa waxa weeyaan way kugu cuslaanaysaa lilaahi alxamdu waxaanu leenahay istaraatiijiyad aynu ka duulayno oo aynu garan karayno ilaa 2020 wixii aynu qabsan karayno marka waynu sii diyaarsanay sanadkan waxaynu qabanayno waynu sii diyaarsanay waxa iminka leenooga baahan yahay waa fulintii iyo ku dhaqankii iyo ka wada shaqayntii iyo ka wada socodkii weeyaan geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasna hadalka ku dheeraaday agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Somaliland Jamaal Cabdi Muuse maanta waxaan isugu nimay halkan inaanu qabanno shir sanadeedkii wasaaradda ujeedadiisuna tahay inaanu dib u eegis ku samayno waxyaabay noo qabsoomay sanadkii hore inagoo ka eegayna dhinacyo fara badan maxaynu ku guuleysanay maxaa caqabado inaga hor yimi maxaynu ka faa'iideysan karnaa sidoo kale waxaanu diiradda saari doonaa qodobada ugu muhiimsan qorshe sanadeedka sanadka 2020 waxaanu eegi doonaa qorshayaasheenu sida u waafaqsan yihiin qorshaha labaad ee horumarinta qaranka NDP2 iyo istiraatiijiyadda wasaaradda dabcan waxa ku jiraysa inaynu aragtiyo cusub wadaagno la sheekaysto la faaqido lana sameeyo hanaan loo wada xidhiidho si loo xoojiyo shaqada marka intaas oo dhan waxa ku soo ururaysaa wanaajinta